الله هيا جمعت جو حوية جريتانكي نولو شوية جاجوز تاتينا ميسي متخيلينه لا إله إلا الله السلام عليكم علنك هلا بابيو maanta waxaan ku faraxsanahay inay soo muujiseen soo baxdeen oo inala filaayo ha barakeeyo alla dhiiga alla dhiiga alla dhiiga alla dhuuxa goday Jubbaland iyo Gaarisa waa midko soo hal ma goday Gaarisa iyo Jubbaland markaan joogno meeshan siyaasadaheena yaryar waa iska caadi waan isku haysanaynaa laakiin markuu calankan taagan yahay hal baan nahay soo maaha marka aad iyo aad u mahadsantihiin baashaala caawa maxaa waaye cidda maxaa waaye qowmiyaddana ma aha qabiil qowmiyad soomanin waa nation soo maaha allah israaciyo ilaahay calankeena United Nationka ka muujiyo ogaadeen yana qaran allah ka dhigo إلهي إذن كي واحرونا أنت دمنا الله إسرائيل وإسرائيل هاي إسرائيل مركي أوجادين إسكراعه قارسنا إسرائيل وإسرائيل إسرائيل سومو وير بايميده ورير وليداي سومو دمان مدحنا شرفت له قيمها لو ماشي جوكتو dhammaantood uu hogaaminayo afyeenkeena cadaani allah barakeeyo oo meel dheer ka yimid caawana wafdiga qiimaha leh u socdo ilaa iyo Nairobi kadibna hadana ilaa Australia ay rabaan inay ka qayb galaan xalfadaha socdo waa qadiyad iyo dhiig Soomaho siday dadka dhiiga iyo qadiyada iyo xoogooda iyo xoolahooda iyo waqtigooda ay ugu horeen inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala na tuso qaran aan leenahay oo aan u dagaalanin oo dhiig badan ku daatay inuu ilaahayna siiyo ilaahay idinkii inta u soo dagaalantay inta dhimatay jannada Allah geeyo inta qaaraankii xooga ku bixisay ilaahay dambigooda ha dhaafo inta kadib horta sanadkii horena meeshan waan joogay intii hore qaaraan alla bixi jireen anoo iskuul dhiganaya qaaraanka liga qaadan jiray ninka kaliya waxa ahay heesta calanka yaqaan oo nalif Soomo waxaan ii sheegi ninkii wiilishiisa yiri xambaara nin walba meesha uu qabto wuu garanay dhiga Soomaalin meeshaan yahay waa garanaysiinay dhiga soo saasmo ilaahay idinkii jaaliyada Gaaris waxaan u sheegi insha Allah ta'ala mar damba Mareykan meelaha loogama imaanayo jaaliyada rag badan oo xildhibaan ay soo dhiseen meeshan awaal badan ku leeyihiin baa jiro waxaan ii sheegi awaal igu darsada mar damba jaaliyadan qaaraan looma guraayo maantana wixii meeshan ku bixay iyo dhaanto dhamaanteed waan u istaagi insha Allah ta'ala min jaaliyadiisa qarankiisa baxay idinkana insha Allah waqtiga markii la gaaray hiliya gob iyo gobonimo malaynaay meeshan maanta waa xaflad ogaadeenya xaflad siyaasad ma aha waxa way qof walba horta dhiiga soo kiciisa ma aha wadankeena maanta taariikh 15 bisha 8 midda labaad walaalahay sharaf baan waxaan u celinayaa mahad oo isoo waceen oo maarta inaan kala qayb qaato xafladan aan 2 iyo 3 ka dhaho aad bay u mahadsan yihiin walaalahay English martida noo imaadeen aad ay u mahadsan yihiin midda labaad markaan ka gudbo dhalinyarada meesha waxa malayn gabdhii wiil qurux badan oo la isku imaadeen hal eray baa markaa xornimo maxaan ku gaaraynaa marka waxaan leenahay hambaliyo ogaadeenya waa dalkeeni waa dhiigeeni maxay ahayd waan u dabaaldegaynaa waxaana leeyahay ma sha Allah قول وقاذية إلى دها السلام عليكم عليكم السلام ما أنت ومالين وين ومالين فرحة له ومالين معها لمد أهين سنة كستوى مالين أنا قصوا مرتا سماها ما شاء الله وحان ربع هرت فست إنني مهد عليو قد جينا هلكن إسكوي مت أو قلبت ود بلدك سين وقاذية aniga waxaan ahay gabar reer Gaarisa ah halkan ku dhalatay waxaan ahay former women rep aspirant Garissa County
Wapi makofi. magacayga waa Farxiya Muuse Cabdullaahi aad aan u faraxsanahay galabta inaan ila dabaaldego oo halkan aan imaado oo ka qayb qaato xalfadan sharafta leh anaga haddaan nahay reer Ogaadeeniya waxaan nahay qaran Ogaadeeniya waa qaran marka waxaan leeyahay anoo Gaarisa ku dhashay markasto maalin kasto maanta iigu horeysa xalfad Ogaadeeniya aan imaado oo la dabaaldego laakiin markasto social media ayaan ka dabaaldegi jiray oo ayaan igala qayb qaadan jiray maanta aad aan u faraxsanahay faraxdayda lama koobi karo marka waxaan rabaa inaan u diro dadka Ogaadeeniya ha xorowdo Ogaadeeniya ha xorowdo Ogaadeeniya ha midowdo marka anaga haddaan nahay reer Gaaris waxaan leenahay Ogaadeeniya ha xorowdo ha la siiyo xornimo wadankooda ha loo ogolaado UN ta ha geliso inay wadan oo qaran ay yihiin marka aan intaas aan leeyahay meel kasta aad joogtiin ammaanka ku jooga walaalnimo ku jooga dad isku xiran noqdo midda labaad waxaan rabaa inaan u diro maxaa la dhihi jiray Soomaalida degan Gaarisa aniga oo haween ah oo leader ah oo halkan ku dhashay waxaan rabaa in qabarka liga inay awada la taalo walaaloonahay wadanka anaga iska leh waan isla dhalanay wiilkii soo gala waa wiilkeena wiilkana xukumaay waa wiilkeena dad isla dhalanaanahay gabadhi soo gashay waa gabadheena walaalayaalow Ogaadeeniya ha noolaato Ogaadeeniya ha noolaato Ogaadeeniya ha xoroodo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا هرب وشيغي مغاعيغا waxaa yiraahdaa Cabdi Maxamed Cabdirabe chief former chief corporal location manahay nimankan ilaahay ma saataa howlwadeenka ka muxuu ahay onalef oo aan ka wada soconay ayadoo arinta ay qatar tahay yaan wada soconay ilaahay wuxuu na siiyay dawlad fiican oo aan wax hadan iyo xajaanka galaynin xafladaha imaanaynay laakiin laba xafladii u dambeysay ma imaanin marka maanta waxaan u imaaday in aan maaragtay aan taageero ama aan u hambaliyo jabhadda ilaahay maaragtay muxuu ahay Ogaadeeniya wuxuu yiri Calays Ciise Kaashe anaga reewaamaanahay ma mansoonay laakiin sarmooyahan qaadnaa sarmooyahan ilaahay masatay waxaan ugu hormaray Calays Ciise Kaashe bariga halkankii aan wada NFD wuxuu dhahay shartaad xoolaha nacdaan xiniin yihiin gurmaan xaglaha dhiigni ugu dido xawal badan aad qodaan xornimo aad qaadataan xaraan bay iga tahay dadkii aasaasay muxuu ahay jabhadan inta dhimatay Allah u xariisto intii kalena amuro Allah u taameero wax xaq bay ku dhinteen dad cadow oo iska dhicin kuma tixgelinay annaga meesha 4 sano la dagaalay 4 sano waxay faa'iido u dhashay dhulka kala qaadanahay baa yaa noo badbaaday dadka tacmiinkan le ruux shaqo la qoray maxaa loo qoray haddaan bariga aan la dagaalin dhul baan hayn leen meesha midho aan kala qaadanay anaga haadgeed wixii noqon lahayd inkastoo idinka dawlad fiicnaan oo dawlad fiican oo baarta iska ahayd haddii Afrikaan waa iska ahayd marka nimankii cadowga ah ee wadankaanaga iyo meesha asalaan aan ka soo jeeday aniga waxaan ahay reewaamaninka ugu reewaamasan laakiin waxaan ka imaaday halka awowgay saddexaad wuxuu ku xabaalayaa barguud meesha goday dowladka ku xabaalayaa marka ciidan magacaan iskale meel kasta oo joogno anaga meesha una sheegno waa kaas dirkii lahaye waxa la dirka ma qoslo dhibaato markii dad baa la dhiibay walbahaar iyo calool xumo dhag xumo aan maqlana waxa ugu weyn dhageysta dhag xumo waxaan maqlaa dawlad jeel la dhisay oo la yiraahdo jeel Ogaadeen waligeed taas kama harayso marka waxay yeelaysiin waxaan leenahay marna waa qalin marna waa qori halka la ogaana magaca Ogaadeen iyo dalka dhammaas kale soo saasba hadda Gaaris nin muuyo Gaaris dhahay ilaahay bisda yaa aad magaan wuxuu ku haystaa dad baa ku xumaada magaca Ogaadeen iyo Ogaadeen dalka la dhahaa laakiin Ogaadeen kale bas kala Gaaris oo loogu maado meesha muuyo wuxuu ku leeyahay Gaaris marka saas jirta magacaas waa magac ilaahay bisda guud waa magac ilaahay bisda dalka wuxuu taray Allah baarakay hal xoojiyo marka waxa leeyahay maanta laga bilaabo waxaan rabnaa inaan garab istaagno oo waqti walba garabkooda aan noqonna haddaan Kenya joogno Soomaan ani magacaygu waa Honorable Irshad waxaan ahay aspirant u taagan Garissa Township musharaxa hoose ee Garissa Township
marka waxaan leeyahay barasho wanaagsan aad iyo aad maanta u farxe maalintii u koowaad oo aan imaado way meeshan xafladii hore ma joogin waa maqnaa marka barasho wanaagsan ani magacayga waa honorable Irshad sidaan iigu sheegay waxaan u tagayaa kursiga hoose ee Garissa Township waxaan rabaa inaan garab istaag inagana inay garab istaagtiin nin walba kuuriisa Garissa Township buu yahay waa mahadsantiin dhamaantiin